السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يقصد هذا شغلة وياك TV. ما أنت واحد هذا موضوع عنه وامح الشيعة وحي أساس مطي صدح ذي قرني النبي صلى الله عليه وسلم أماني كذب أساس كوهدني وحاي بلا مطي مركي حسين بن علي لودري من كربلاء مركي هو وحي الشيعة بلا مطي كوح ليرادو سيدية كواس عقاب سيد بن حسين بن علي سيد وعوان مجاهدة أو جودها مسلمين تقوى فصين وحير ميسيهم ودن مرك laga reebo isagu arkay in Ali bin Abi Talib uu khilaafada ka mudnaa Abu Bakar waa uu qirsanaa fadliga ay leeyihiin Umar iyo Abu Bakar inta aanu dhiman waxa uu naxariis weydiiyay eebe labada khaliif inta aysan dhiman markii Sayd dhintay bad kamid ah Saydiyada waxa ay u diideen xasil dalabkii Sayd Abu Bakar iyo Umar uu sameyn jiray waxaana loo bixiyay Raafido waana halka ay ka timid kooxda ama ereyga Raafido kuwaasina waxa ay u sii qaybsaneen dhowr iyo 70 kooxood taariikhda Raafidadu waxa ka buuxda khiyaano iyo dhagar badan ay u oogeen dawladihii Islaamka waxaana ay la midoobi jiray cadawga Islaamka waxyaalaha aan la yaabo waxa kamid ah sida ay u soo baxeen waxa kan oo Shiica iyadoo ay muslimiintu xoogga saareen xadiista nabiga si xiriir ah looga wariyo oo aan waxba la dhexgelin karin markii ay muslimiintu xoogga saareen xadiiska iyo fiqiga iyo tafsiirka halkii la hilmaamay qorida taariikhda markaas bay Shiicadu isku hawleen qorista taariikhda waxa ay taariikhda ka buuxiyeen dhacdooyin findada ee saxaabada dhexmaray hadii aad raacday xadiiska dhacdooyinka findada waxa arkaysaa in dhammaan warinta ay wariyeen ay dureysay saxaabada nabiga gaar ahaan bani Umayya ee uu hogaaminayay Muawiya bin Abi Sufyaan iyo dalay maanta mawduucan intaan ku dhamaaday aad baa u mahadsantihiin